Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijkeennii jacaylkii berisamaadka. Waxaynu ka bilaabayno heesta 36aad. Magaceeda waxaa la yidhaahdaa Saaxiib baan nahay cishqiga. Waxay leedahay: saaxiib baan nahay cishqiga, sadkaan wada qoodannaa, hurdadaan wada seexannaa, sagsaag abad iguma falo, taydana eebba u sakhiray. Hadduusan ku neeflahaa sun iyo qaar dacar u yahay, aniga waa iisun kale, sidee baan uga go'aa xubbiga u salwigayaa. Saaxiib baan nahay cishqiga, dantayduu saacidaa, sahwiga wuu iga jiraa, seetiya ima badoo dhibo, libtuu idhaha ku soco. Masira aadmiga qofkii xidhiidh la samaysta oo silaca ruuxii ka jira, saruu geeyay miyaan suldaan caashaqu ahayn. Jacaylow waan ku sidii intaan saarahay adduun, ileen halka lagu socdiyo seedihii dunida tahay. Heesta 37aad waxay leedahay: shidan naftayda waxbaa ku shidan, dab iyo olol bay dul shidan. Adoo meel taagan shidan, markii aan ku eegay shidan, wixii iga raacay shidan. Waxaa tahay dawlad shidan, cuqaal iyo madax leh shidan, korkaagana muuqu shidan. Qofkii ku dayaa kor shidan, wuxuu la darsaa dab shidan. Hablaha adigaa ka shidan, ilays baa tahay u shidan, Soomaalida bariga shidan. Heesta yar oo kooban intaa markaan kaga nimaadno heesta 38aad. Waxaa la yidhahdaa magaceeda Allaa kugu jooqay bilic. Waxay leedahay: jidiin iyo dhaymo iyo jal weedhaada iigu filan, boggana intaan jeexay baan kaa jiifiyey qayb dhanoo nacaagiina aan ka jaray. Adaan igu falin jikaar, jugtana ii diida oo jawaabtaan kaa helaan xumaan iyo ceeb ku jirin. Qalbigan kuu jilicsan baan jalleeci karayn filkaa. Jirkiyo roobkuu da'oo dhulkana jiifiyey biyaha, dhaayaha jeer kugu dhacaa, jaadkiisaa kuu dayoo Allaa kugu jooqay bilic. Anaa habla kaa jantoo jar iyo awgaa u maray, meelaan uun jooginoo waxay jiriirico macaan kortaa jismigayga badi, kolkaan ku jalleeco adi. Jacaylkan kuu qabaa qiyaas iyo joog ma laha, jannoy habluhuna dhammaan jamaalkaaga ma laha. Jaahaaguna waa cajiib, indhaha soo jiita oo mar aan laga jeesan karin. Heesta 39aad. Ul iyo dir. Ilma adeer wada tashaday, axdina galay baynu nahay, ayaankoodoo saxmiya aroos sugayaynu nahay. Asaagood iyo filkoodu waxyo iska doortay oo is aaminay baynu nahay, ul iyo dir baynu nahay, aabbiyo hooyaynu nahay dadkuna aanu ogeyn. Labuu uunkiyo dadkiyo aadmigu mahadshaynu nahay, ilays dhulka iyo arlada iftiinshay ayaynu nahay. Il iyo baal baynu nahay, ilkiyo daan baynu nahay, bariyo arday baynu nahay, man iyo ubax baynu nahay, xigtiyo ehel baynu nahay, awlaad muxibaynu nahay. Iftiin soo kahayo ayaantoodii wacnayd, ilaah ka sugayo abaal iskulaynu nahay. Heesta ugu dambeysa waxaa la yidhahdaa Qurux. Wuxuu leeyahay: waa heesta 40aad aynu kusoo gabagabaynaynay qaybteena 8aad. Aduu kuu qaaday caashaq, aduu kuu qiray asluubta, aduu kugu qeexay hoonno inaad gabadhii qarniga tahay. Aduu qurmo kula niyeystay, aduu ballan kaaga qaaday qayrkaa idilkood haweenka inuu kaba quusan doono. Aduu qaas kuugu heesay, aduu kaaga soomay quudka, aduu kuu diiday qoonsi, aduu qadafkaa ilaashay. Aduu qayb dhan kuugu deeqay hibada uu siiyey qaadir, aduu awgaa qorshaystay in badan inuu dilo qudhiis. Warkaas waa bancas tolmaaniga muuyi ka soco. Aduu quruxay walaalo uu kaa qaabilay haweeney qalbigan kuu nugul ilaasho. Ka dhowr qadafkiyo xumaanta, dhigoo meel qawla seexi, qumaantii u soo dhowayso, habbaadin qiiriyo walaace, u noqo qaryad uu ku faano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa inoo iyo kulanti dambe.